بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعند وديالكنا سولوادا warka telefishinka VOS Somali TV qodobada wararkiisa ugu door koron oo sida tooska ah kaga imaanaya studio ku leeyahay magaalada Muqdisho. qodobada wararkeena ugu door koron waxa kamid ah magaalada Muqdisho oo wajahayso isbedel dhaqaale kadib markii la diiday isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga. رئيسل وزراء حمزة عبد البر oo Dani iyo Axmed Madoobe ku eedeeyay in wadaan qorshe lagu kala qaybinayo Soomaaliya. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo digniin culus u diray askarta aan gudan waajibaadkooda shaqo. xildhibaan Faarax Macalin oo kashifay sir culus oo ku saabsan burburintii Soomaaliya. taliska booliiska waqooyi bari oo digniin adag u diray dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada. Ugaas Cabdiraxmaan oo sheegay in Soomaaliya ay gashay marxalad taariikhiya. akhbaaraadka dibaddana waxa ugu door koron dagaalka Xisbullah ee Israa'iil oo sii xoogeysanayo. Mareykanka iyo Iiraan oo hanjabaad hawada isku marinayo. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno warka telefishinka VOS Somali TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. warka intuu hawada ku jiro waxaad la socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doona. hase yeeshee isagoo faahfaahsan. magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa isbedel dhaqaale kadib markii la diiday lacagta shilin Soomaaliga. wariyaheena ayaan Yuusuf Faarax ayaa inoo dhameystiray warkaasi. qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa laga diiday isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga iyadoo goobaha ganacsiga iyo gaadiidka dadweynaha ay si cad u joojiyeen qaadashada lacagtaasi. hakad kooban ayaa ku yimid isticmaalka lacagtaasi iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in lacagtii ugu dambeysay ee sida kooban loo isticmaali jiray gaar ahaan 1,000 shilin ay hadda si buuxda uga baxday suuqyada magaalada Muqdisho. arintan ayaa ka dhigan in shilin Soomaaliga uu gabi ahaanba ka baxay isticmaalka maalinlaha ah ee caasimadda. ganacsatada iyo wadayaasha gaadiidka dadweynaha ayaa sheegay in sababta ugu weyn ay lacagtan u qaadan waayeen in ay tahay qiimo dhac iyo duugo ku yimid lacagta, taasi oo ka dhigtay mid aan la isku halleyn karin. ma aqbalno lacagta shilin Soomaaliga sababtoo ah ma lahan qiimo sugan, dadkuna way ka cawdaan, ayuu yiri mid ka mid ah gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Muqdisho. xaaladan ma ahan mid ku cusub dalka, maadaama horeyba shilin Soomaaliga looga diiday gobolada dalkeena, halkaasi oo si weyn loogu bedelay doolarka iyo adeegyada lacagaha elektarooniga ah. waxaa sidoo kale la tilmaamayaa in haddii cilad yar ay ku timaado shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha elektarooniga ah ay halis geli karto dhaqaalaha guud ee dalka, maadaama aysan jirin lacag qaran oo si buuxda loo isticmaalo. khubarada dhaqaalaha ayaa arintan ku tilmaamay mid halis ku ah madax-bannaanida dhaqaale ee dalka, iyagoo ka digaya in ku tiirnaanshaha nidaamka leh ay keeni karto dhibaatooyin waaweyn haddii ay dhacaan cilado farsamo ama isbedel dhaqaale. waxay sidoo kale xuseen in maqnaanshaha lacag qaran oo shaqeysa ay adkeynayso in la xakameeyo sicir bararka iyo in la dhiso nidaam dhaqaale oo midaysan. dhinaca kale waxaa jira baahi sii kordhaysa oo loo qabo in dib loo soo nooleeyo lacagta shilin Soomaaliga iyadoo la doonayo in la helo lacag cusub oo tayo leh si loo xoojiyo kalsoonida shacabka loona yareeyo ku tiirnaanshaha lacagta shisheeye. ugu dambeyn waxaa isa soo taraya baaqyada ku aadan in dib loo soo celiyo lacagta shilin Soomaaliga iyadoo la sameynayo lacag cusub oo tayo leh si loo soo celiyo kalsoonida shacabka loona xoojiyo dhaqaalaha dalka.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Dani iyo Axmed Madoobe ku eedeeyay inay wadaan qorshe lagu kala qaybinayo Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Cali Siyaad ayaa warkaasi inoo ambaqaadaya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si kulul uga hadlay arrimo la xiriira midnimada dalka isagoona eedeyntoos u jeediyay madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Said Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe. ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in hogaamiyaashaasi ay wadaan tallaabooyin halis gelin kara midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana carabka uu ku adkeeyay in dowladda dhexe ay si buuxda uga go'an tahay difaaca midnimada dalka iyo ilaalinta wadajirka shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka si dhow ay ula socoto dhaqdhaqaaqyadaasi isla markaana aysan ogolaan doonin wax kasta oo wiiqaya jiritaanka iyo midnimada dalka. hadalkan ayaa imaanaya xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada kuwa oo ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin awood qaybsiga doorashooyinka iyo nidaamka dowladnimo. waxaa socda oo habeen iyo maalin laga shaqaynayaa sidii loo qaybin lahaa Soomaaliya loo qaybin lahaa ayada oo loo marayo duruufaha ina haysta nidaamka xukun waliba inaan si fiican u fahmin ee federaalka la yiraahdo ayada oo loo marayo waxaa la gaaray inaan laba qarsanin nin laga yaabo Soomaaliyeed oo deegaan ka mid ah Soomaali xukumaay inuu annaga noogu hanjabo haddaydan saas samaynin waan goosanayaaba si cad haddaan saa la yeelin waan goosanayaa haddaan doorasho dadban layla aadin saan anugu rabo dalkan wuu kala tegayaa anna dib dambe laga arki maayo waan goosanayaa dalkan waad garan kartaan termiska adduunka iyo waddamada iyo ummadaha siday dembi u tahay iyo intay la eg tahay inuu nin inta istaago cidnaba dooran xataa meesha uu iska jooga ama haddii la doortay dee dadka doortay aysan ahayn dad public vote kuma imaan xataa suuku yimid ilaahay baa og ruuxu rabo ha ahaado inuu iska yidhaahdo Soomaaliya anaa kala goynaya dalka isma haysanayo waan ka go'aynaa Soomaaliya si cad inuu yidhaahdo dembigaas waa garan kartaan intuu leeyahay maanta bannaankay taallaa waa la iska dhahayaa waxaadna moodaa qofkaas xataa inuusan aaminsanin inuu dembi galayo marka halistaasaa ina haysata idinka ayaa marka jihada ama mu'assasadda waajibkeeda koobaad u yahay in la ilaaliyo calankan iyo midnimada dhuleed midda cireed iyo midda badeed ee dalkan marka waajibka culus ayaa idin saaran halistaasina way jirtaa la socda diyaar garooba waxa weeye dalkeenna sidaan u difaacan lahayn qorshaheedii keena taladeedii keena aragtideedii keena xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay in sidii aan ku dhaarannay ilaahay hortiis aan ku dhaarannay inaan ilaalino tabarteenna dalkeenna midnimadiisa ummadda Soomaaliyeedna markhaati bay ka tahay habeen iyo maalin inaan u taagannahay midnimadaas sidii loo ilaalin lahaa dalka iyo bahallada badan iyo waraabayaasha badan ee soo weerareen maalinba mid yuraynayno oo wakhtiga naga qaadayo oo hantida nooga dhammaanayso oo diblomaasiyadeennii iyo culayska ugu badan ay ka soo fuulayso ummadda Soomaaliyeed way og yihiin allana waa og yahay subxaanahu taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa digniin culus u diray askarta aan gudan waajibaadkooda. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xamuud ayaa digniin adag u diray askarta ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed isagoona ku booriyay in ay gutaan waajibaadkooda shaqo si hufan oo daacadnimo ku jirto. taliyaha ayaa sheegay in askari kasta oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed laga doonayo in uu si dhab ah u shaqeeyo si uu u xalaalsado mushaarka uu qaato. sidoo kale waxa uu digniin adag u diray askarta qaata mushaarka balse aan sida dhabta ugu shaqeynin xilkii loo igmaday isagoona xusay in tilaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo dayacaad iyo mas'uuliyad darro. dadkan quruxda badan meesha ku jira oo dhalinyarada adeero luuqyada ka soo bax haddii ani ku arki waay wallaahi billahi ilaah ku arkaa
lacagtaas xaaraan waa marka ani waxaan rabaa safarkan safarkiis yaa ana meeshan gaarida ka bilaabnaan rabnaa jidka dhex maray anagoo isku hal uniform wadana ama cagaar ha ahaado ama madow ha ahaado ama kaaki ha ahaado meeshaan maxaa ka jira marka meeshaan waxaa ka jira dad intii ciidan laga dhigay xuquuq loo soo daayey oo guryahooda iska jiifa qofkaas uruguu cunaa urug wuxuu cunaa urug waa 200 uu ka qaadanaya asluubta urug waa Uruguay waxa waaye taliya qaybta dadkan dhan waardiye galayaan oo xabsiga labada xabsiyeed dadkan dhan qofkii aan waardiye galayn Soomaha adeero iska bax laakiin shaatiga asluubta iyo naga wasaqaynin baydhow waxa ku qoran 300 iyo wax la jira laakiin waardiyaha dadka galay 50 qof waa ilaahay idinku dhaarshay maxay tahay waxaas haddii anaka aan saxno dawladdu waana qaadanaysaa haddaan issax weyno dawladdu waxay leedahay damab loo baahna marka adii 250 soo maaha ma loo baahno 50 kaas le wax la siinaa marka ani intaan jiri iyo wasiir hebelaan raaci iyo hebelaan raaci maya anaka waxaan laga rabaa wasaaradda cadaaladda maxkamadaha iyo xabsiyada intaasaan amniga ilaalin waxay kaa dhibaysana ma laha haddii hadda kulligeen aan isku qorno waardiyaha waxay noqonaysaa qofkiiba in bishii hal mar ku soo aado ama 2 mar ku soo aaday noqonay taliya qayb adiga waa kugu wareejiyaan kuwan waxaa la rabaa adig ku shaqayso ani subax walba idin soo wacaban marka fiiri markii oo lo'da iyo geeli marka fadhiista fiiri see loo kiciyaa waa la iskugu tagaa mugta hal mar daflis warbaashaan iskugu tagno haddii kale lagu kala tagaa wallahi meeqa qoys ayaa maanta ku nool lacagtaas aad ka qaadataa asluubta meeqa qoysaa ku nool meeqa ilmaa wax ka bartaan meeqa agoonaa wax ka siisaan adeero marka dadkaas si ay wax fiican u bartaan hal habeen waardiye gal wax ma kaa dhibaysee inta ani joogaaba la tijaabinaa haddii idin garab isiinin yaa garab isiinaa marka ya haddii idin garab isiinin yaa garab isiina marka aan isgarab siino aan isu garab siino يعني حق الله مدي كله dadka meesha ku xiran masaakiinta dhibka qabaan xataa in laga duceystaa la rabo taliska ciidanka booliiska waqooyi bari ayaa digniin adag u diray dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada sida warkan oo magaalada Laascaanood inooga soo diray wariyaheena Cabdirashiid Xasan Walah taliska qaybta gobolka Sool ee ciidanka booliiska dawladda waqooyi bari ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen eedaysane lagu magacaabo Sadaam Salaad Ibraahin kaasoo lagu eedeeyay inuu faafiyay muuqaal ka hor imanaya anshaxa guud ee asluubta bulshada iyo qiyamka suuban ee islaamka sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska muuqaalkaas ayaa lagu baahiyey baraha bulshada isagoo si weyn u kiciyey dareenka bulshada ciidanka ayaa tilmaamay in eedaysanaha hadda uu ku jiro gacanta hay'adaha amniga isla markaana si rasmi ah loo horgeyn doono laguna wareejin doono hay'adaha garsoorka si loo mariyo nidaamka cadaaladeed ee u adeegsan falalka noocan oo kale ah dhanka kale taliska booliska ayaa xaqiijiyey in ay weli socdaan howlgallo lagu baadigoobayo gabadh kale oo ka muuqatay muuqaalkaas si loo dhammaystiro baadhitaanka iyo habraacyada sharciga ugu dambayn ciidanka booliska ayaa digniin culus u diray dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada iyagoo ku booriyey in laga fogaado falal kasta oo dhaawacaya anshaxa akhlaaqda iyo qiyamka bulshada taliska ayaa sidoo kale adkeeyey in cid kasta oo ku lug yeelata falal noocan oo kale ah lala tiigsan doono sharciga ugaas Cabdiraxmaan oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed ayaa sheegay in Soomaaliya ay gashay marxalad taariikhi ah sida warkan mar kale inoogu ambaqaadayo wariyaheena
ayaan yuusuf faarax. ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliifa ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya isaga oo bogaadiyay horumarka muuqda ee laga gaaray dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ugaaska ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay gaartay marxalad cusub oo ka duwan xilliyadii hore isaga oo xusay in markii ugu horeysay ay dhacday in hoggaanka sare ee dalka ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay muddo xiloodkooda si nabad ah ku dhameysteen iyagoo aan iskhilaafin. Arrintan ayuu ku tilmaamay guul taariikhi ah oo muujinaysa biseelka siyaasadda dalka. Sidoo kale ugaaska ayaa tilmaamay in Soomaaliya maanta ay marayso marxalad horumarineed oo cusub gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha isaga oo xusay in dalka uu u diyaar garoobayo qodista shidaalka isla markaana ay sii kordhayso kalsoonida maalgelin shisheeye. Waxa uu intaasi ku daray in guulahan ay ka dhasheen dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. laga soo bilaabo Carta iyo maalinkan aan maanta joogno inta u dhaxaysa waxaan xog ogaal u ahaa oon sidan u soo dhex taagnaa arrimaha Soomaaliya. weli ma dhicin qolo intay shaqadii isla soo bilowday madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo weliba guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiye aqal sare oo intay shaqo isla soo bilaabeen isla dhamaysta ma dhicin. waa ammaan iyo dulqaad iyo sharaf iyo karaamo gooni oo nimankan la imaadeen wey. waxay ku dareen horumar ballaadhan oo ilaahay markii laga cabsan hayo aad u wada ogtihiin. dadkeenni Soomaalida ahaa wuxuu u batay xumaanta bay yaqaanaan. waxa ugu wacnaan Soomaali waan garan waayay. wanaagga aala ma arkaan kamana hadlaan. Soomaaliya hadda waxay maraysaa heer ay gaadho in maalgashadayaashu ay ku soo dhiiradaan oo maraakiibtii shidaalka qodaysay ay timaado oo ay inta badan ammaan tahay. adduunkana waxaa laga fiiriyaa caasimadda. guddoomiye caasimaddii waa nabad. waa waxaan dhowaanahan dhicin baa ka dhacay. waxaana ku ammaanan adiga iyo inta odayaasha kuusiya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha guddoonka labada aqal naftooda dhammaantiin. weli waxaad la socotaan wararka VOS Somali TV kuwada ugu dorkoron haatan akhbaaraadka caalamka. dagaalka Xisbullah ee Israa'iil ayaa sii xoogeysanayo kadib wadahadalkii burburay Iiraan iyo Mareykanka ayaa waxa uu isku bedelay in hawada isku mariyaan hanjabaad aad u sareysa oo ku aadan cidda ku awood roonaan doonto bariga dhexe. militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in go'doominta marinka biyeedka Hormuz ay bilaaban doonto galinkii dambe ee Isniinta oo maanta ah isla markaana ay sameyn doonaan kaliya maraakiibta u soconaya ama ka imaanaya dekedda Iiraan ay la socon doonaan dhaqdhaqaaqooda. Iiraanna waxa ay sheegtay in maraakiibta militariga ee soo maraya marinbiyoodkaasi ay ula dhaqmi doonaan si daran, halka afhayeenka baarlamaanka dalkaasina uu sheegay in Tehran ay marnaba isdhiibi doonin. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay tilaabadan kadib markii wadahadalkii ay la yeesheen Iiraan uu fashil ku soo dhamaaday isla markaana heshiiskii la isku afgaran waayay in lagu joojiyo dagaalka si buuxda isla markaana wadahadal lagu dhameystiri doono inta harsan si loo furo marinbiyoodka Hormuz oo ah halbowlaha ganacsiga ee wadamo badan. qiimaha saliidda ayaa mar kale sare u kacay $100 ayuuna gaaray kadib markii uu burburo wadahadalkii Mareykanka iyo Iiraan. Donald Trump ayaa sheegay in xanibaadda ciidankani badda ee Mareykanka ay cadaadis saari doonto Iiraan isla markaana maraakiibta wadadaasi maraya ay furi doonaan. guud ahaan waxaa intaasi ku soo gabagabeynayna warkii telefishinka VOS Somali TV aad kala socoteen
warka intuu hawada ku jiray waxaa hawada idiin marinaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doona intaan warkan warkiisa xigaan ku wada kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.